الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أننا xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maanta oo taariikhdu ay tahay 9 bisha 12 December 2018 waxaan rabnaa inaan idin cadeyno oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno meel kasto joogan inaan muxuu ahaa u gudbinay soo jeedintii xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u gudbinay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay tusaaleynayna guddoonka golaha shacabka ayaan u gudbinay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta arrintaasi sababteedii waxay tahay iyada oo madaxweynaha anagoo aad ugu xun ku xadgudbay qodobada dastuurka in badan oo kamid ah oo 1 2 3 la dhihi karo taas oo muxuu ahaa ku macnaysan xadgudub dastuuri ah iyada oo sidoo kale ay jirto xadgudub awoodeed ama ku takrifal awoodeed iyada oo ay jirto xadgudub ka gaarin ah ama ka tegis ah waajibaad laga rabay muddadii dheereed ee madaxweynaha xilka lagu aaminay uu dalka u hayay waxaan muxuu ahaa lagama maarmaan u aragnay annaga oo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah iyo kalsoonidii shacbiga Soomaaliyeed nagu doortay madaxweynihii aan iyaga magacooda ku dooranay haddii uu gabay uu ku fashilmay uu gudun waayay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee laga rabay waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadano tallaabada shacabka uu naga doonayo oo dastuurka na faray sidaas daraadeed iyada oo faahfaahinta iyo dokumentiga eedaha iyo tallaabooyinka sida loo qaadayo golaha baarlamaanka hortiisa laga soo jeedin doono aan filayo inaad haysataan la idin qiimiyay dokumentiga oo qoraal oo hordhac ah waxaan idin cadeynayaa inaan tallaabadaas saas u qaadanay ayna tahay tallaabo waafaqsan sharciga iyo nidaamka dalka u degsan iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa ku wareejinaya xildhibaanada garbayga fadhiya ee u xil saaran inay ka hadlaan magaca xildhibaanada ku hadlaan oo soo jeediyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام يا xildhibaanada sharafta leh halkan isugu yimid meediyaha iyo khiyaarta kale ee goobtan fadhida waa laga hadlay hindisahan soo jeedinta ah iyo gudbintiisii iyo qabashadiisii waxaan rabaa inaan sheego horta anagu waxaan nahay guddi ay soo direen maaragtay xildhibaanada hindisahan ku saxiixan hindisahan wuxuu marayaa processkii caadiga ahaa ee loogu talagalay maadaama aanu gudbinayna waxaanu ka sugaynaa in maaragtay guddoonku uu soo gudbiyo golaha hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado
oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran, oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaalla oo uu si cad ugu tuntay, iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey. waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka. waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro, kuwaas oo aan la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan. wixii faahfaahina iyo qodobadaasi iyo siday dastuurka u waafaqsan yihiin iyo xeer walba meesha uu cuskan yahayna waxay ku faahfaahsan tahay soo jeedinta hindisaha iyadoo oo qodobaysan. laakiin waxaanu kaliya rabnaa inaanu sheegno in si waafaqsan oo sharcigu noo ogol yahay aanu usoo diyaarinay oo usoo gudbinay. waxaa nala quman madaxweynuhu markii la dooranayey si kal iyo laaba bay shacabka Soomaaliyeed uga codeeyeen, usoo dhaweeyeen, u marxabeeyeen. waxaana muuqata diiradii iyo rajadii shacabku ay qabeen in ay ku hungoobeen. sidaa daraaddeed looma baahneen inaan anagu nidhaahno iska tag, laakiin isagu in isgartay ahayd. hase yeeshee waxaanu rabnaa inaanu u sheegno inuusan madaxweynuhu ummadda sii lugoyn. 2 sano waa elef inuu maaragtay u naxariisto ummaddii Soomaaliyeed ee maaragtay xilkan u igmatay, oo maanta uusan maaragtay dhib intaa ka weyn u geysan. sidaasaanu rabnaa inuu maaragtay soo jeedino. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wixii kaloo faahfaahina waxaan uga tegayaa saaxiibadayda xildhibaanada kale oo goobta fadhiya. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka koowaad waxaan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya iyo dhammaan meediyaha iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta joogtada. maanta ay taariikhdu tahay 9 Diseembar 2018 sida xeer wasaadka iyo maxaa ku raadis dastuurka dalka u yaala shuruucda kaleba ay xaq noo siisay ilaalinta sarreynta sharciga iyo korjoogteynta sharciga. waxaan soo gudbinay golaha guddoonka golaha shacabka u gudbinay soo jeedin ama hindise xilka qaadis madaxweyne. annagoo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta xilka haya ee eedeysan garab istaagay qaran ku bixiyay codkooda siiyay si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka. waxaan maanta xaqiijinaynaa oon caddaynaynaa marqaatina ka yihiin shacabkii aan matalayno codkoodana ku siinay una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meelo kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweynaha kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reer la ahayn. saan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkanaga siinay, weliba aan qaran ugu deeqnay. maanta kal jacayl iyo maxaan ku rahdaa saaxiib uu ahaa iyo shalan doortay uma garab taagnaan karo. hadduu si cad qodobada dalka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karo. waa inaan ka qabanaa uguna qabanaa dariiqii sharciga uu noo siiyey. kadib markii talooyin wax ku ool ah oo qodobada iyo wax lagu tumayo shuruucda lagu tumayo aan u jeedinay laga dhaga furaystay oo xaq noo siiyey sharciga inaan soo gudbino kana qabanno dalka. sidaan la wada soconnaba يعني قضاء بدن أو دستورية هي حرر كلا دل قدكسن أيوة سبر المدعين واحد قبي ويمكن وجود هاي شرعية يهشيسة ما أنت اللي جل أيوة وهذا يرعتي وحيهين يعدل رجلي يحرك يوسعدان يجيت كلا جل هاي يدك كدم بأن الجريني إلا هذا نحن نصاب بدي ولا شعب توكيل إلى أن أنت دلك يودنها قرنك شعب ولا شعب كأولي وحول ولا نسلوس وجبين awayaan oo kale oo maalin habeen iyo maalin socda qodobo si cad loogu tumanayo oo wax ku takrifan awoodeen dalkan meeshuu ka yimaado ognahay wuxuu maray xaalad isku kabkab oo federaalkan si lagu soo dhisay iyo maanta qarannimada iyo dowladnimada aan haysan oo qiimaha leh halka lala soo maray
iyo jaraajirooyinka ay soo martay iyadoo cid kastoo Soomaali oo waxgarad ah dan iyo duul meesha ku noolshahayba ay og tahay iyo juhdiga lagu bixiyay in maanta si fudud oo sahal ah lagu kala diro raalli kama noqon karo ugumana aamusi karno shalay waa doorateen waa saaxiibkiin ugu aamusi karo sida ajligeed waxaan halkan ku cadeynaynaa annagoo wakiilka sida loo sheegayba xildhibaanada golaha shacabka ee soo jeedintan soo gudbiyay inaan soo jeedin hindise xilka qaadis madaxweyne maanta aan u gudbinay guddoonka golaha shacabka lagana aqbalay insha allahu tacaala wixii faahfaahinaya qodobada oo faahfaahsan mid walbana daliisheeda uu wato waxaan ka hor aqrin doonaa kana soo jeedin doonaa يعني فديك الجراحة شعب عادي هذا ما سنتين ويحكوا فاهمين وحنو بالدنيا نور خير يا صاحب هذا الكلام السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بلامتر سيدا صاحبتي sheegeen waxaan maanta gudbinay soo jeedin xilka qaadis madaxweynaha dalka Soomaaliyeed mudane Cabdullaahi Farmaajo walaalayaal sida sababta ugu weyn aan hadda isleenahay xilka qaadista waa u gudbisay sababaha intooda badan waxay ku sababaysan yihiin soo jeedinta lafteeda laakiin anigu qaar ka mid ah baan rabaa inaan si gaar ah isu dul taago ta ugu horeysa waxa weeye walaalayaal dalkeenu maanta wuxuu ku jiraa halis aan weli hore u soo waajihin Soomaaliya 85 sanadood buu gumaysteena haystay 85 ka sanadood 10 sano oo xiriira weli ma dhicin in Soomaalida dalka degani ay iska caabin la'aan ay ku joogaan dalka waxayna inala soo dirsay xaalado badan oo adag oo aynu uga soo baxnay isku tashi iyo inaynu wax kale waynu ka tanaasuli karnaa aynu diidno inaynu madax banaanideena ka tanaasulno markii aanu aragnay in madaxweynaha madax banaanida dalku aanay macno badan u lahayn waxaana la gudboonaatay inaanu xilka qaadistiisa soo jeedino waxa loo socdaa waxa weeye jiritaankeenna weeye waxa loo socdaa waxa weeye in la ilaaliyo oo la sugo madax banaanideena diineed madax banaanideena dhaqan madax banaanideena ummadeed madax banaanideena si kasta oo qof bini aadan u noolaan kara mid siyaasad noqoto mid dhaqaalaha noqoto mid bulsho noqoto waxaanu aragnaa walaalayaal in khatar weyn ay ka soo socoto madaxweyne qaran oo si dhib yar heshiisyo aanu garanaynin waxa ay dalka dhaxalsiin karaan u soo gala midda labaad ee ugu weyn aanu qabno in madaxweynaha talada looga qaado oo impeachment lagu sameeyo xilka qaadistiisa aan u soo jeedinay waxa weeye madax banaanaan laayihiin shaqadoodii amni ee ahayd inay ka shaqeeyaan oo ay ku mashquulsan yihiin waxyaalo lagu caburinayo dadka shacabka ciidamadu raalli kama aha laakiin marka madaxweynahoodii u horseedayo in ay dadka shacabka ay dhibaateeyaan oo loo isticmaalo instrumentski iyo aalaadkii dawliga ahaa loo isticmaalo in lagu dhibaateeyo shacabka iyo siyaasiyiinta ka shaqeynaya danta qaranka waxaa noola ekaatay inaan arrintaa loo dul qaadan karin oo ay tahay in mooshin laga keeno oo madaxweynaha laga keeno xilka qaadis waxaa ka mid ah walaalayaal siyaabaha loo magacaabo hay-adihii ay ahayd inay ka madax banaanaadaan siyaasadda oo ay ka mid tahay maxkamadda sare waxaynu la wada soconnaa in maxkamadda sare guddoomiyihii maxkamadda sare si sharci darro ah looga qaaday xilkii waxaynu la soconnaa si sharci darro ah in loo magacaabay guddoomiye maxkamad sare marka ku tumashada sidaa loogu tumanayo sharciga ee lagu ururinayo awoodihii kala madax banaanaaya dalka ee kala ahaa awooddii baarlamaanka oo sharci dejinta awooddii fulinta oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo awooddii garsoorka ee la rabo in la isugu milo markaanu aragnay in waxaasi ay yihiin wixii dalkeenu u burburay ina dhaxalsiiyey aafada maanta aynu ku dhex jirno waxaa noo ekaatay in madaxweynuhu uu fudud yahay oo aanu impeachment ka keenno ummadda Soomaaliyeedna ay nala ogaato inteeda badan inay nala og tahay waxyaalaha uu ku kacay waxaa ka mid ah walaalayaal sababaha aan impeachment uga keenay ama ka xilka qaadista iyadoo madaxweynuhu uu awood yeelan waayay
oo ay u suuro geli weyday inuu isku wado maamul goboleedadii ay ahayd in isagu uu xukumo oo madaxweynayaashii ka horreeyayba ay isku wadi jireen. waa ogtihiin oo hadda dowladda federaalka ee aanu ka tirsannahay 2 kilomitir oo xamar ka badan 4 kilomitir baanu dhammaantay intayadan xildhibaanada ah iyo maxaa la yidhahdaa madaxda qarankuba 4 kilomitir baan walaalayaal dhex wareegnaa. dalka fidintii maamulka iyo isu dulqaadashadii iyo isu jiidistii iyo odayeyntii laga rabay madaxweynuhu inuu isku wado xukuumadda iyo maamul goboleedada meesha way ka baxday. kartidaana waxaanu qabnaa madaxweynuhu oo idinkana idin cad oo horeba u ogeydeen in uu ku guul daraystay inuu hawsha ka soo baxo. marka madaxweynuhu markuu xilkiisa dastuuriga ahaa uu dalka ku maamuli lahaa uu ku guul daraystay, annaga waxaa nala gudboon keliya in aanu ka keenno xilka qaadis aanu ku badbaadinayno dhulkeenna iyo dekedaheenna iyo khayraadkeenna iyo ummadeenna iyo jiritaankeenna iyo dhaqankeenna iyo diinteenna. marka xilka qaadistu intaasay daaran tahay. waa ka سعدي